madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku joogay magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ayaa xadhiga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga qotomiyay gudaha magaalada Ceerigaabo kuwaas oo kala ah xarunta maxkamadda rafcaanka xafiiska xeerlaalinta gobolka xerada ciidanka birmadka iyo laba saldhig boolis dhismayaashan ayaa qaarkood lagu soo kordhiyay xarumo cusub oo u adeegi doona wax weyn ka taraya shaqada ay mas'uulka uga yihiin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kormeer u kuurgal ah ku gaala bixiyay xarumaha miiska saraakiisha ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag xarunta jaamacadda Sanaag iyo xarunta jaamacadda Daalo iyadoo mas'uuliyiinta xarumaha ka arrimiya ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga warrameen adeegyada xarumahan ay bixiyaan iyo guulaha laga gaaray horumarintooda gudoomiyaha jaamacadda Sanaag Professor Cali Cabdi Hurre iyo maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa ka warramay guulaha ay ku talaabsatay jaamacadda Sanaag ee magaalada Ceerigaabo iyo mashaariicda horumarineed ee xukuumaddu ay ka qotomisay gobolka Sanaag jaamacadda noogu timid qalin jabintii waxaan ka codsaday shan shay baan ka codsaday oo ay ka mid tahay gaari xafiisada imanka dhisanaynu joogno muxuu ahaa kalaasiyo lacagna ka jaro ka boona la siin jiray oo muxuu ahaa oo ah inaan nuli jaamacad uma iyadu isma bixiso waxa weeye jaamacadaha de waa jaamacad ka dambeysay ma ogtahay waad soo celisay deyrka ayaad muxuu ahaa iyadana aanu ku weydiisanay wixii ba waxaad ku soo dhameysay yani 5 casho oo anigu tagay maaliyadda aan ka soo qaaday maaliyadda marka horta madaxweyne aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweyne maantana annagoo xishood nagu jiro runtii oo de qofka de wax ku siyaada wal xishoodaysa de foogtay xishood baa nagu jira warqad baan ku diyaar gareynay waxaad kari karto nimanka maanta joogay madaxda ka ah oo ugu horeeyo Cali Cabdi Hurre oo barastaabkii hore gobolkan ahaan jiray Sanaag oo markii barastaabnimadii cidka lagu wareejay yiri aqoonta ka tagi maayo ahaana macallin qadiima muddo dheer markii secondary gu jiray Ceerigaabana macallin buu ka ahaa wuxuu aqoonta ka tagi maayo jaamacaduna meel gaarsiinaya aad baan ugu mahadnaqayaa runtii maalintii aad noo timi ay baahida soo keenana markiiba emergency baad ka dhigtay maanta madaxweyne aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay horumarka ka socda gobolka Sanaag isagoo u mahad celiyay mas'uuliyiinta degmada iyo ka gobolka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo gobolka guud ahaan intii aanu joognay waftigan ballaaran soo dhaweyn iyo wixii hawle loo baahday iyo gobolkii oo dhan inuu heegan yahay waftiga iyo la shaqeyntiisa aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa maanta mashaariicda aanu soo furray ee inta badan gobolku ama wasaaraduhu iyagu ay dhisteen badankooda oo inta badan wasaaraduhu iskooda u dhisteenna aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa dadaalka aad gobol ahaan heerka wasaaradaha iyo maamulka gobolku uu ku dadaalayo inuu dhismo hay-adihii dawladda ee gobolku ee wasaaraduhu mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iftiimiyay hadafka jamhuuriyadda Soomaaliland ee mustaqbalka ee qaranka lagu horumarinayo waxaanu doonaynaa inay noqoto Soomaaliland dalalka adduunka ugu horumarsan inay muddo ku gaadho oo maskaxda gaarsiiyo qofka bini aadmiga hadba hankiisa intuu gaarsiiyo iyo dal waliba ayuu gaara laakiin da'dina yar imika raga maamulka hayo haddaydan meel fog eegin oo aydan dadka dalku dhibaatooyin ku jiro ka gudbinin oo aydan u adkaysan halkaas baan fadhiyana nin waliba dalkiisu dhisaa idagmadiisa ma jiro cid dalkooda cid u dhistay dal waliba iyaga dhistay Sanaag imisa aqoon beelad Sanaag imisa taajir beelad Sanaag imisa nin oo wax qaban karo wax dhis kara ilaa Sanaag imisa nin oo ilaahay aqli iyo xigmad ilaa haday intaasi mustaqbalka carruurteeda isugu tagto oo aynu doonayno jaamacad wanaagsan
oo tacliinku waa la si bixiysa oo tiro dalkan mustaqbalka wax u filan ay isu kaashato dawladda iyo Soomaaliland oo dhammaan way ku caawinaysaa way garab qabanaysaa inta keentaan in lagana waa la keenay waxaan ku baraarujinayaa horta inaynu fariinta gaarsiino reer Sanaag meel ay joogaan dawladda dhexe imikana waxa la wixii tabartayada ah waxba ka aqriyo jaamacadda mudaad koowaad bay noo leedahay waa mustaqbalkii birito jaamacadda oo dhisayna gobolka waa la dadaalaynaa sida dawladdu teed baa naga dhaba aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa maamulka iyo degmada wadaashana waa u mahadnaqaynaa waa dhisayna dalka waana isku tagaynaa waxaa xusid mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xadhiga ka jaray qasriga madaxtooyada gobolka Sanaag maalintii uu gobolka safarkiisa uu ka bilaabmay Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag